تاجي نعم صاجس Soomaaliya dowladda Abba Maxamed Siyaad Barre sini kahinnaha kontinero bisahan makaynay marsolnay yaadaysa ku Jabuuti marso ay sitahay takini waqtimeeye oo kala mangoytati waqti kontiner istahan kontiner oo bisahan tamakinay marsolnay ita kinni kadam waqtimeeye to kaduna muno abakalu kimete marso habukti to kale suktehe marsolo تو تو ماكينة تاماكي وماكينة اللي تامت يعني حاجة كي تبيع كسله تنمكي جيبوتي مرسول استنم جيبوتي مرسول ديتانكي إنكيه سومالي دولتي هبا محمد سياد بري برسيني كا توكل يقول لنا مرسول بينو اللي هاي المري وتي اللي تامتها وماكينة اللي تامت يتنكادونا وعيسنتي يقول مراكب كي تاما أبتاها مراكب السيادة وبشرطين السيادة اللي شكته تنه تندويي كونتر كدحي إيانا تقويه بالسمكينة كنوك بوقشدا لبدا مدحويني ay ku marayeen marsada magaala madaxda waxa kamid ahay booqashadii ay ku tageen furdada marsada magaala madaxda ee qalabka lagu qaado waxyaalada culus ay ku rakiban yihiin qalabkaasi oo maraakiibta lagaga daadijiyo laguna fuushiyo waxyaalada culus qalabkaasi oo dhowrkan sanadood ee u dambeeyay marsada magaala madaxda Jabuuti ay ku shaqayso waxaana labada madaxweyne mar walba booqashadaasi ay ku marayeen marsada hadba goobta ay marayaan baa warbixino ay ka helayeen xildhibaanada marsada Soomaaliya dowladda Abba President Maxamed Siyaad Barre kee umuunaha baalxad Xasan Guleed Abtidoon اللحبوهن قارا وحكادونا ينقروني تارجينا سوماليا دولت كي جيبوتي دولت مانجو حاجة داي ستالي جاي هني لما دولت ستالو كل تامت ويتل فيرما هني هي جيبوتي دولت هبا بريدان حسن قولي دابتيدون سوماليا دولت هبا محمد سياد بر اللوك طول مبحي ستالي جاي هني اللي فيرما هي لما دولت توكينو كي علينو ستالوكو هاي ستالوكو اللي تامتون وانا ستالوكو باشتون وانا هن عادا تامد دفيناي اللي حبوساكو هاي ستي هين اللي انكم اللي يني فيرما اللي هن kadib markii booqashadii marsada ay ku tageen labada madaxweyne ay dhamaatay waxa wufuudda labada dal ay isugu yimaadeen fadhi hawleed oo lagu soo gabagabeeyay ama lagu soo xidhay warmurtiyeed labada madaxweyne ay saxeexeen waxana warmurtiyeedkaasi uu dhigayay sida tan madaxweynaha dalka Soomaaliya President Maxamed Siyaad Barre ayaa booqasho rasmi ah oo saaxiibtinimo oo qaadatay 4 maalmood ku joogay magaala madaxda Jamhuuriyadda Djibouti waxana booqashadaasi madaxweynaha dalka Soomaaliya uu ka jawaabay martiqaad keenay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Xasan Guleed Abtidoon oo ruux soo baxa qaaradda Afrika waxana warmurtiyeedkaasi lagu sheegay nimadiisu inteebay adiga kugu muuqata in madaxweynaha dalka Soomaaliya President Maxamed Siyaad Barre iyo wafdiga xaqiiqadii ra'yi aad u wanaagsan ay ka heleen madaxda Jamhuuriyadda Djibouti iyo ummadda Jamhuuriyadda Djibouti oo soo dhaweyn wanaagsan iyadoo danahoodana ay ka wada hadlaan haddana shirka noocaas oo kaleeta ah wuxuu waxtar ka noqonaya sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka la soo gudboonaaday muddooyinkan dambeeto Afrika khaasa geeska Afrika amaba qorax u dhaca Afrika haddii la eego oo abaaraha iyo nabaad guurka ah si fiican buna u dhacay waxaana shaki iga jirin haddii si fiican loo wada shaqeeyo in ay dhibaatooyin badan oo dabiici ahaana faydi doonto isla markaasna si dadban ay uga qayb geli doonto isafgaradka iyo wax wada qabsiga ama siyaasiga ah ama muxuu ahaa dhaqanka ah ama dhaqaalaha
mudana madaxweyne muddadii aad joogtay dalka ama kulankaas uu socday waxaa kaloo aad kulanteen hogaamiyaha dalka Ethiopia Mengistu Haile Mariam maxay ahayd kulankaas ujeedadiisu halkeebay si gaarsiisanayeen wadahadalladaas arrinta Soomaaliya iyo Ethiopia dhextiilay oo arrin duq ah oo boqolaal sano soo socotay dhibaato fara badanna u abuurtay shucuubta Ethiopia iyo Soomaaliya khasaaro badan oo la timid walla wixii faa'iido ahaa oo bini aadamku ay ku haboonayd inuu iska helana gafsiisay aniga iyo madaxweynaha dalka Ethiopia wada hadalkanagii halkaa ayuu ka bilowday ilaa meesha fog kadibna heshiisku wuxuu ahaa in guddi la qabto guddigaasuna uu soo baaro sababaha dhibaatooyinkaas boqolaalka sano jiray asalkoodii sidii looga bixi lahaana ama daawo loogu heli lahaana la isla doono waxaan rajaynayaa inta labada dowladood madaxdoodu madaxda hadda madaxweyneyaalka keliya kuma wade madaxdu waa badan tahay ay u wada arkaan dhibaatadaas taagantaa daawo udoonkeeda isla markaasna labada shacbina ay u fahmaan dhibaatooyinka faraha badnaa oo ay soo mareen inay habboon tahay mar haddii laguna daalay ayna duqoobeen in xal loo helo waxaanse aada u rajaynayaa anoo huba barbarka jamhuuriyadda Soomaaliyeed niyadsameeyo inay jirto xagga walaalahana Ethiopiana inay u gartaan sidoo kaleeto dhibaatada faa'iido daradeeda iyo walaalnimada iyo wax wada qabsiga faa'iidadooda sidoo kale iyaguna inay gartaan anoo ku kalsoon chairman Mengistu Haile Mariam inuu kolleyba ay iga muuqatay niyadsameeyo